بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، أيها الأحبة في الله، أحبكم في الله. إلهي درادي أيان إذين شعلهاي ومسلسل كي نوسو سعودي كساب سنة قصوينك صحيحة كسقنا ذي الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تبارك وتعالى. ciwaanku maanta wuxuu yahay waana la weydiin. qisadu sidan soo socota ayay u dhacday. Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wuxuu leeyahay maalin maalmaha kamida waxaa soo baxay nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ama maalin ba idama habeen ba ahayd, laakiin saacad dambe oo nin weyn uusan gurigiisa ka soo bixin ayay ahayd. se wuxuu la kulmay Abu Bakar iyo Umar buu la kulmay. Subhanallah, wuxuu la kulmay Abu Bakar iyo Umar buu la kulmay. Nabigu su'aal buu weydiiyey sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wuxuu yiri maxaa saacadan guriyihiina idinka soo saaray? maxaad u maleynaysaan inay ku jawaabi doonaan? maxaa qalbigaaga ku soo dhacaya? maxaa maankaaga iyo maskaxdaada ku soo maaxanaya? maxaad isleedahay inuu Nabi Muhammad soo saaray sallallahu alayhi wasallam? maxaad ku fikiraysaa Abu Bakar maxaa soo saaray oo Umar maxaa soo saaray? waa saddexdii ugu fadliga badnaa ummadda Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. nabigu makhluuqu ugu fadli badan yahay. Abu Bakar iyo Umarna ummadda Nabi Muhammad bay ugu fadli badan yihiin. waqiila waxaa kaloo la yidhi ayagana way ugu fadli badan yihiin bacda al-anbiya. waxay dhaheen waxaa guriga naga soo saaray maxay? gaajo. لا إله إلا الله. الجوع يا رسول الله. gaaja naga soo saartay rasuulka ilaahayow. nabiga maxaa soo saaray? nabiguna muxuu ku jawaabay asaguna sallallahu alayhi wasallam? wuxuu yidhi anigana ilaahay baan ku dhaartaye waxaa gurigayga iga soo saaray waxa idinka guryihiina idinka soo saaray. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. hadihi addunya. adduunya hadday qiimo lahaan lahayd waxaa la siin lahaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. waaba la siiyey uu dooran lahaa. waxaa la siin lahaa Abu Bakar iyo Umar, waaba la siiyey. ilaahay jidkiisay ku bixin jireen. ilaahayna way ugu dhowaan jireen subxaanahu wa ta'ala. nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam, mar hadduu arrinku sidaa iyo nooca iyo caynkaa yahay, bal ina keena. waxay u tageen aadeenna nin reer ansaareeda gurigiisa. ansaartii saxaabadii madiina loogu yimid ba ansaar la dhahaa. saxaabi kamida ayay gurigiisa aadeen, laakiin maba joogo. gurigii waxay ugu tageen xaaskiisii keliya bay ugu tageen. haweenaydii markay aragtay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Abu Bakar iyo Umar markay aragtay, waxay tidhi soo dhowaada, marxaban wa ahla, soo dhowaada ayay ku tidhi. nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu weydiiyey awey hebel, yacni ninkii guriga lahaa awey. waxay ugu jawaabtay wuu baxay oo wuu noo soo shaqaynayaa, ama biyo macaan iyo waxbaan u baahanay ayuu noo keenayaa. isla markiiba ayada oon wakhtiba laga joogin, ninkii reer ansaareed baa yimid. wuxuu labadiisa indhood ku arkay rasuulullah sallallahu alayhi wasallam iyo Abu Bakar iyo Umar. muxuu sameeyey? qaala alxamdu lilah. ilaahay buu ugu shukriyey, ilaahay buu ugu xamdiyey subxaanahu wa ta'ala arrinkaa. wuxuuna yidhi ooma malaynayo maanta cid ay marti la joogto oo aniga iga fadli badan. waa run, waa sax. maanta gurigiisa waxaa marti ku ah rasuululhudaa sallallahu alayhi wasallam, khayru khalqi illah, almustafa almujtaba, kii la doortay ee makhluuqaadka o dhan laga doortay baa gurigiisa jooga. nabiga kadib Abu Bakar iyo Umar baa jooga. marka adduunyada qof ay marti u timid, adduunyada qof ay marti u timid oo ka fadli badan miyaa jira saxaabiga? laa wallah. cidda ay marti ay gurigiisa maanta martida ku yahay rasuulullah sallallahu alayhi wasallam, cidda ay gurigiisa ay martida ku tahay Abu Bakar iyo Umar, wuxuu yidhi ما أحد اليوم أكرم
adyaafan minii maanta cid iga fadli badan oo iga martidayda marti ka wanaagsan ay la joogtaayeen lama arko kadibna waa istaagay saxaabigii markiiba waa istaagay wuxuu u keenay timir anwaacdeeda kala duwan busrun wa tamrun wa ratbun timirtu markay soo bislaanayso iyo markay bislaato iyo markay xoogaa yar adag tahay anwaacdeeda dhan ayuu u keenay isla markiina wuxuu yidhi cuuna haddana muxuu sameeyey mindi ama sakiin wax lagu qowraco ayuu qaatay markaasuu nabigu wuxuu dareemay sallallahu alayhi wasallam luqada af Soomaaliga inuu u loogayo loogitaanka dadkii hore u baa garanaya waa qof aad jeceshay markuu kuu yimaado inaad neef ariya u qasho haddii la badan yahayna dibi aad qasho haddii la sii badan yahayna neef geel oo riti ah aad marka aad qasho ayaa la yidhahdaa waa ii loogay hebel marka wuxuu dareemay inuu u loogayo oo u qalayo nabigu markiiba wallada wuxuu yidhi waan ku arkaa inaad wax noo qalayse iska ilaali neef dhala neef dhadiga iska ilaali maxaa yeelay dhadigu waa ka qiimo badan yahay labka mar walbaba maxaa yeelay dhadigu waa dhalaa dhadigu waxa weeyaan caano ayaa laga maalaa dhadigu waa uu tarmaa laakiin labku sidaas ma aha marka iyaaka walxaluub wuxuu yidhi adiga iyo neef la liso iska ilaali yani neef irmaan ama neef dhadiga ama neef irmaan labaduba waa la yidhi xaluubka neef la lisana waa la yidhi neef dhadigana waa laga wadaa saxaabigii waa soo qowracay wuxuu ilaahay u qoray neefkii markaa nabi maxamed inuu calooshiisa galo ilaahay uu qoray ayuu u soo qalay timirtii iyo markay cuneen timirtii iyo markay biyihii cabbeen markii ay cuneen oy dhergeen weliba riwaayooyinka qaarkood waxay tilmaamayaan nabiga sal ly wasalam hadalkan soo socda wuxuu yidhi bes markay biyihii cabbeen timirtana cuneen ayuu nabigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu abubakar iyo cumar ku yidhi ilaahay baan ku dhaartaye latus'alunna can hada annaciim walla nicmadan waa la idin weydiin doonaa maalinta qiyaamo waa halku dhegga kelimada aan ciwaanka idinka dhigay walle waa nala weydiin nacam qof kastaba nicmada la siiyey walle waa nala weydiin yowma alqiyaami maalinta qiyaamo ayaa nala weydiin kadibna gurigii ayay ka baxeen nabiga sala allahu aleyh wasalam iyo abubakar su-aashaas ayada ahee nicmadaasaana la weydiinayaaye qiyaamo markii la tago laba qaab baa xisaabta u dhici doontaa mid waxaa la yidhahda ticdaadu nicam waana midda hadda loola jeedo nicmooyinka laguu tirinayaa caafimaad ma ku siiyey laakiin waad ku shukriday muslim ma kaa dhigay ilaahay waad igu caabuday xoolo ma ku siiyey laakiin xaqi baad ku gudatay yacni ticdaadu nicam nicmadii lagu siiyaa laguu tirin midna tawbiikh baa lagu dhahaayo waa xisaabta lagugu adkaynayo waana miday hooyadeen caaisha tiri nabigu uu ku yiri sal ly slam man nuuqisha alxisaab cudib qofka xisaabta lagu adkeeyo qofkaasi waa la cadaabay ama fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira waxaa weeyaan waa xisaabta fudud ama man nuuqisha alxisaaba cudib wallahi latus'alunna yowmaidin can الnaciim alhaakum الtakaathur xatى zurtum اlmaqaabir kalaa sawfa taclamuun ثuma kalaa sawfa taclamuun kalaa low taclamuuna cilma alyaqiin latarawunna aljaxiim ثuma latarawunnaha cayna alyaqiin ثuma latus'alunna yowmaidin can الnaciim su-aashu waxay tahay qisadani maxaad ka fahantay qisadani maxaad ka fahantay adigaan kuu daynayaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala in aad raadiso ujeeddada qisadan iyo xigmadda ku jirta wajazaakum allahu khayran wa uxibukum fi llah wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh